Assalaamu calaykum. Mucaaradkii Suuriya waa ay guuleysteen dagaalkiina waa uu soo gabagaboobay. Dimashq gacanta ayaa lagu dhigay ra'iisul wasaarihii Suuriyana war lama filaana ayaa ka soo yeeray oo dunida oo dhan ka amakaagiyay. Wararkii ugu dambeeyay sida ay wax u socdaan guulaha la gaaray dowladda cusub ee lagu dhawaaqay iyo weliba sidoo kale go'aanada ka soo baxay xubnaha mucaaradka ee la wareegay guud ahaan Suuriya. barnaamijka ayaynu ku falanqeynaynaa soo dhawaada halkani waa Marqaati TV taariikhdu waa 8 bisha December sanadka 2024 waana maalin axada. ugu horeyn aynu gudagalno sidii ay wax u dhaceen inkastoo ay warbaahinta si toos ah u tabinayso haddana mucaaradka Suuriya waxay si dhameystiran ula wareegeen magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya waxa ay qabsadeen garoonkii diyaaradaha iyo xarumaha dawladda. tani waxa ay ka dhigan tahay in uu dhacay xukunkii reer Asad. mucaaradka Suuriya kaliya kuma afgambin Bashar al-Assad howlgal military sidoo kale waxa ay heleen qadka sirdoonka iyo militariga ee nidaamka Asad tan oo ka dhalatay kadib markii mucaaradku heshiis ay la gaareen saraakiil military iyo sidoo kale sirdoon oo ka mid ah kuwa taliska Asad. sidaasi waxa lagu xaqiijiyay war saxaafadeed ay baahiyeen. wax walba waxay u muuqdeen dhacdooyin la yaab leh laakiin hadda waxa laga maqlay mucaaradka inuu jiray qorshe howlgelin oo ka socday gudaha madaxtooyada Suuriya taasoo la xiriirtay in qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee militariga iyo sirdoonka inay wada xaajood la galeen mucaaradka. mid ka mid ah howlgalada ay doorka ku lahaayeen waa habkii ciidanka nidaamka Asad looga saaray magaalada Xumus. ka bixitaanka ciidanka ma jirin wax tala ah oo uu ku lahaa Asad waxaana bixiyay amarka saraakiisha la shaqeynayay mucaaradka. waa waxa sidoo kale ina tusayay in isla habka mucaaradka adeegsadeen markii ay qabsadeen Xama markii uu burburay taliska difaaca Asad. marka wuxuu Bashar galay xaalad argagax leh iyo weliba kala shaki taliska dhexdiisa sabab la xiriira ka bixitaanka saldhigyada muhiimka ah ee ciidanka ilaa markii dambe si rasmi ah loo kala diray ciidanka nidaamka Asad markii mucaaradku ay qabsadeen saldhigyada iyo xarumaha laga ilaaliyo Dimashq oo ay xalay si rasmi ah ula wareegeen. amarkaana waxa uu ku yimid saraakiisha la shaqeysay mucaaradka. nuxurku waa in mucaaradku uu ku guuleystay in uu jibiyo habkii howlgelinta ciidanka nidaamka Asad ilaa aan laga hoos qaadin markii uu shalay amar ku bixiyay Bashar dhammaan ciidanka inay ilaaliyaan Dimashq taasoo aan dhicin. hogaamiyaha mucaaradka Suuriya waxa uu soo saaray go'aamo waxa uu mamnuucay in xabadda baldegyo ah la rido lagana rido Dimashq. adeega dawladda ayaa u soconaya sidii maalintii ka horeysay qabsashada Dimashq iyo weliba inta badan Suuriya waxa ka socda takbiir iyo dabaaldeg. mucaaradku waxay ku dhawaaqeen cidda sii wadi doonta howlgalka dawladda. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya halka uu ku dambeeyo Bashar al-Assad. xalig warbaahinta Mareykanka waxay tabinayeen in Bashar uu cararay dhanka Imaaraadka Carabta. hase ahaatee waxa la leeyahay waxaa jira qorshayaal kale ama jihooyin kale oo Bashar u aaday. Iiraanna waxa ay wada xaajood la furtay mucaaradka Suuriya ee la wareegay maamulka si ay u hesho qad ay kula xiriirto mucaaradka iyo marin ammaan ah oo ay kula bixi karto ciidanka iyo hantida ka taala gudaha Suuriya sida uu ku waramay wargeyska The New York Times. hogaanka mucaaradka ayaa la sheegayaa in ay damaanad qaad siiyeen Iiraan oo la xiriira in aan la taaban doonin hantida Iiraan sidoo kalena ay ilaalin doonaan shiicada laga tirada badan yahay ee Suuriya. sidoo kale Imaaraadka iyo Ruushka waxay ku guuldareysteen dadaal iyo qorshayaal ay ku doonayeen saacadihii u dambeeyay in ay ku qanciyaan Turkiga in uu mucaaradka ka joojiyo Dimashq. si gaar ah Moscow waxay burbur kala kulantay qorshe ay kala shaqeynaysay Abu Dhabi oo lagu doonayay inay saraakiisha militariga iyo wasaaradda difaaca ku dhawaaqaan afgambi in xukunka looga tuuray Bashar al-Assad kadib markii saraakiisha ku kala qaybsameen sida uu ku waramay wargeyska Wall Street Journal. mucaaradka Suuriya markii ay la wareegeen Dimashq oo ay xaqiijiyeen inuu baxsaday Asad oo xukunku gacantooda ku soo dhacay wuxuu soo saaray hogaamiyahooda sare go'aan uu uga mamnuucayo xogaga mucaaradku inay gudaha u galaan xarumaha hay'adaha dawladda iyo adeega bulshada isagoo ku amray in uu shaqadii dawladda sii hogaaminayo ra'iisul wasaarihii nidaamka Asad oo aan ka bixin Dimashq. wax walbana waxay Dimashq uga soconayaan sida in uu jawiga ahaa maalintii mucaaradku ay galayeen maalintii ka horeysay. waxyaabaha la yaab kale waxa ay tahay ra'iisul wasaaraha xukuumaddii nidaamkii Asad ee Suuriya Mohammad Ghazi al-Jalali waxa uu wajigiisa ka ilaashaday taariikh mahadda ku noqon lahayd. dabcan waa sunni balse waxa uu qaatay go'aan maangal ah markii uu baahiyay muuqaal uu ku sheegayo in uusan ka bixi doonin Dimashq oo uu hayn doono faylashii dawladda iyo xarumaha dawladda. nidaam kasta oo hela kalsoonida shacabka oo la shaqeyn doono. tani waxay dhalisay in ay kalsooni siiyaan mucaaradka oo war saxaafadeed rasmi ah ku sheegay in uu shaqada sii wado oo uu hogaamin doono adeega bulshada
ilaa xukunka lagala wareegayo, tan oo dhalisay in lagu amro agaasimayaasha iyo maareeyaasha hay-adaha dowladdu inay shaqo galaan oo u adeegaan bulshada, weliba si caadi ah shaqada loo wado. mucaaradka sidoo kale waxa ay ku amreen ciidankii booliiska ee magaalo kasta oo ay ku jirto Dimashq ee ay gacanta ku dhigeen inay shaqeeyaan oo aysan ka bixin. sidoo kalena dowladaha hoose adeega gurmadka degdega ah iyo xarumaha caafimaadka in ay shaqeeyaan ayaa la faray. yacni dowladdu sideeda ayay hawsha u wadaysaa. war-saxaafadeed lagula hadlaya shacabka Suuriya oo ay baahiyeen mucaaradka waxay ku sheegeen Suuriyada cusub waxay noqon doontaa dowlad damaanad qaadaysa sharafta, cadaaladda iyo hay-ado ka tarjumaya rabitaanka dadka, taasoo ka dhigan in lasoo dhisi doono dowlad lagu qanacsan yahay shacabkana si siman ugu adeegta. markii telefishinka dowladda Suuriya uu baahiyey in xukunkii Bishaar uu dhacay, habka ay u baxday ku dhawaaqista warqadda laga akhriyay diiwaanka waxa ay ku galaysaa inay Bishaar xukunka ka rideen shacabka, sababta oo ah muuqaalka waxaa laga fogeeyay qof kasta oo xiran dharka militariga ama sita hub. dhammaan mas'uuliyiintii halkaasi hadalka ka jeedinaysay sida muuqaalkaba aad ka arki kartaan waxa ay wada xiran yihiin dhar shacab ah, jaakadaha dhaxanta loogu talagalay iyo funaanado, mana jirto cid wadata dareeska ciidanka, taasoo ka dhigan nidaamkii militariga kelitaliskii ninkii ummadda dhibka ku hayay in meesha laga saaray. waayahay mucaaradka Suuriya sidoo kale waxay ku dhawaaqeen in la xiray baal kasta oo mugdi ah oo Suuriya, iyaga oo war-saxaafadeed rasmi ah ku cadeeyay qof kasta oo muwaadin Suuriyaan ah inay ula mid tahay waqtigan maalinta uu dhashay, mana jirto qof dambiile ah ilaa mid ka soo horjeesta kacaanka. geesta kale sida lagu waramayo gaar ahaan ay ku warantay shabakadda Axios, waxay leedahay Bishaar al-Assad waxa uu ku sugan yahay saldhigga ciidanka Ruushka ee Hamim oo ku yaala koonfur bari Suuriya, isagoo isu diyaarinaya sidii uu u gaari lahaa Moscow, halkaa oo toddobaad ka hor uu geeyey qoyskiisa. hase ahaatee warkaasi waxa uu la mid yahay wararkii kala duwanaa ee ka soo baxayay maalmahan arrimaha la xiriira Bishaar al-Assad. geesta kalena Suuriya waxaa jira dareen ka weyn in meesha laga saaray xukunkii Assad. waa in mucaaradku ay sii daayeen maxaabiis ku jirtay xabsi loogu yeero kawaankii dadka ee boqolaalka ruux maalin walba xukun daldalaad ah lagu fulin jiray, waana xabsiga lagu magacaabo Sednaya. waxaa ku jiray dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee la tabiyey maanta in mid ka mid a raggii laga sii daaya xabsiga in uu ku dhaartay 45 daqiiqo inay ka harsaneyd oo keliya waqtigii isaga iyo 54 maxbuus ahayd in la dilo, taasoo ka dhigan haddii 45 daqiiqo ay kasoo dibdhici lahaayeen dhaqdhaqaaqa mucaaradka in xabsigaasi loogu tagi lahaa isaga iyo 54 kale oo meyd ah. qof kale oo xabsiga ku xirnaa waxaa luntay maskaxda, mana uu garanayo xaaladda uu ku jiro. sawir kale waxa uu muujiyay ilmo yar oo xabsiga lagu hayay. xasuuso qof kasta oo xabsigan ku jiray wuxuu ahaa mid sugayay in lagu fuliyo xukun dila. ninka Bishaara ummadda dhib xoogan ayuu u geystay oo aad ayuu dadka u cadaabayay. la taliyaha madaxweynaha Imaaraadka Carabtana waxa uu u sheegay shabakadda Sky News Arabi in Abu Dhabi ay ka soo horjeedo awoodda difaac iyo military in la hoosgeeyo mucaaradka qabsada Suuriya. Imaaraadka ayaa dadaal badan ku bixiyay toddobaadyadii u dambeeyay in uu xukunka ku hayo Bishaar al-Assad, balse ma shaqeyn isku dayadii diblomaasiyadeed oo ay ku jireen in Turkiga lagu qanciyo in uu joojiyo mucaaradka. Imaaraadka wuxuu ilowsan yahay meesha inaanay Afrika ahayn, meesha in aanay ahayn meelihii uu inta ciidamada u samaysto ku kala dilayay, meesha dad rag tashaday ayaa isku yimid oo talada dalkoodii gacanta ku dhigay, isla markaana go'aan ku gaaray in ay dalkooda maamulaan, kalitaliskana ay ka eriyaan. inkastoo howl adag ay hortaalo mucaaradka sababa la xiriira dhinacyada hadda wada qabtay awoodda yacni ka adkaada Bishaar, laftoodu waxay u baahan yihiin inay ku heshiiyaan sida dowladdu ay noqon doonto, sida dalka loo dhisi doono, sida wax loo qaban doono, sida hoggaanka loo kala qaadan doono. sidoo kalena dhammaan ciidankii mucaaradka ee soo dagaalamay waxaa loo baahan yahay in dib u habeen lagu sameeyo, la xareeyo, laga dhigo ciidan qaran, laga dhigo ciidamada difaaci lahaa dalka. haddii intaasi la heli waayo oo dal walba isku dayo in uu arrintan faragelin ku sameeyo, waxaa dhici karta in xitaa Assad dabadii la heshiin waayo. haddaba daawade, haddaad daawateen barnaamijyadii ugu dambeeyay ee xalay aan baahiyey, weliba fiidkii hore ee xalay aan baahiyey, waxaan idinkugu sheegay Suuriya 24 saac gudaheeda in la soo gabagabeyn doono, gacanta lagu dhigi doono, nidaamka Assad meesha uu ka bixi doono. waxaan xitaa idinku iri meel ku sii qorta
24 saac kadib hawsha Suuriya way dhamaatay. yacni markaan saas dhahayay waxaan kala jeeday qiimeyn aan ku sameeyay sida ay wax u socdaan, howlgalada sida u socdaan, awoodda ka hor imaan kartay mucaaradka, howlgaladoodu yacni meelaha ay ku wajahayeen, sida ay u kala cararayeen ciidamadii Asad, iyo xitaa ciidamadii Asad laftoodu inaysan diyaar u ahayn inay dagaalamaan, inay dhintaan, oo yacni aysan u dhimanin wax xaqdara, aysan u dhimanin baahi, aysan u dhimanin yacni wax walba oo ka soo horjeeda dantooda. marka taas waxay keentay qiimeyntii la sameynayay in sidii loogu talagalay ay ku dhamaatay. run ahaantii reer Suuriya maanta aad ay u dabaaldegayaan. reer Suuriya maanta waxaad moodaa inay u dhalatay maalin cusub. dhammaantood waxay yihiin dad hadda dhashay. yacni ma malaysan kartid marka laga soo tago gudaha waddankaas waxa ka jira. waddankan hadda aan anigu ku noolahay aan ku suganahay, waxaan la kulmay yacni dad, waxaan arkay Suuriyaana, waxaan arkay dad Suuriyan oo qaarkood Sunni ah, qaarkood Shiica ah, qaarkood yacni Kristan ah aan arkay. markaan weydiiyey waxaan iri bal ka waran dalkiini isbedel ayaa ka dhacay. nin kasta, qof kasta waa ku faraxsan yahay. waxa uu leeyahay dalkeena hadda ayay nabad ka dhalanaysaa, dalkeena hadda ayaan kusoo noqonaynaa saaxadii dunida. yacni waxay dhibsanayaan dalalkan Yurub ay joogaan, waxay dhibsanayaan meelihii kale farxadka ku ahayn, waxay leeyihiin waa noqonaynaa. haddaba marka maxaan ka baran karnaa haddaan Soomaali nahay? haddaan Soomaali nahay dadkan niyadda waxay ku hayaan, maxaan ka baran karnaa? bal u fiirso, annaga keenan dibadda joogo ma rabo wadankii inuu ku laabto. xitaa nabadaad sheegtee haddii la yidhahdo Soomaaliya Maraykankii oo kale noqotay oo horumar weyn ayaa ka dhashay, ma rabo inuu ku noqdo. waxa uu rabaa mar walbo wadanka in qabiilkaas lagu jiro, in qabiilkaas la isku baabi'iyo, in argagixiso mar walba saas ay samayso, in maamulo la ahaado, in la kala qoqobnaado, ayuu qof walba doonayaa. qofka Soomaaliga ah maanta dib u fiirso, ha ahaado aqoonyahan, yuusan ahaanin yacni wax ka quseeyo wadanka in uu noqdo nabad, wax ka quseeyo in la helo dowladnimo maba ka muuqataba. bal dib u fiiri oo la sheekayso. nin walba qabiilkiisa horumar ma gaaray, qabiilkiisa meel ma qabsaday, qabiilka yacni muxuusan, intaasoo keliya laga fikirayaa. maantana adduunka waxa uu marayaa in wadanka yacni muhiimadda koowaad la siiyo, awood la adeegsado, la iska saaro cid walba oo dullinimo ku haysa. fiiri, annaga 30 sano ayuu wadanka dowlad la-aan ahaa. hadda dowlad ayaaba jirtaba, laakiin wixii ka horeeyey dowladda ayaa burbursanaa, yacni rafaad ayaa lagu jira. ilaa hadda xitaa nidaamka dowladda jira ma aha nidaamkii saxda ahaa oo Soomaalidu ay wax u rabeen, oo yacni dadka Soomaaliyeed iyagu maysan keensan. ilaa hadda waa loo talinayaa. dadkanna waxay doonayaan inay iyagu tashadaan oo iska saaraan cadowga, gumaystaha iyo cid walba oo dhib ku hayso. haddaba annagu maxaan ka baran karnaa waxa ka dhacay Suuriya? daawada aragtaada waa muhiim. fadlan qaybta hoose commentiga ku raba mahadsanid. waxaan idin badan qaadayaa wax walba kusoo kordha xaaladda Suuriya, isbedelada soconaya, sida ay u socdaan, inaan halkan idinkugu soo tabiyo. 12 cisho ayaa lagu soo gabagabeeyey howlgalkii dhammaa ee lagu burburinayay nidaamkii sanadihii badnaa ka talinayay guud ahaan wadanka Suuriya. nidaamkii markii la isku dayay in la rido xasuuqay kumanaan qof oo shacab ah, nidaamkii dalkiisii burburiyey, nidaamkii dalkiisii shisheeyaha u horseeday waxay doonaan inay ka samaystaan, nidaamkii madaxa adkaa ee dadkiisii u turi waayey. 12 cisho oo keliya ayaa lagu burburiyey. tani waa guulo waaweyn oo ay gaareen reer Suuriya. sidoo kale dowladaha guulaha gaaray ee arrintan shacabka Suuriya ama mucaaradka Suuriya kala shaqeeyay waxaa lambar 1 ka ah dowladda Turkiga, oo hab istiraatiijiyadeed oo aan horey loo arag laga amakaagay, dunida oo dhan ka amakaagsan tahay, ku maamushay mucaaradka. istiraatiijiyadaas oo noqotay mid maran dhashay oo guuleysatay oo lagu soo gabagabeeyey Suuriya wixii ka jiray sanadihii u dambeeyey ama 12 sano ee la soo dhaafay. daawade aragtidaada fadlan ha iloobin inaad commentiga ku reebato, muuqaalka share garay, barnaamijka xigeentan ku kulmayna nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.